waxay ku weydiinayaan wax la dhaho proof ama cadeymo waxyaabaha marka laga rabo inaad cadeysid inaad guursato waxa kamid ah inaad geysid shahaadada guurka certificate marriage certificate inaad geysid laba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalaha soomaalida meel kastoo joogtaan si walba waad noo dhageysanaysaan waxaan idinku salaamayaa salaan boqortooyo intaas kadib haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad videogan arkayso waxaan kaa codsanayaa walaal qaale subscribe-ka iyo like-ta inaadan marnababa indhaha isku qabsan subscribe meesha gaduudan taabo like-tana meel dheerayna gaarsiinaysaa insha allah dee commentigana maaragtay wixii markaasi faa'iido oo aad isleedahay la xiriir la share garee raggan la share garee kusoo dhawaada video وهاجاك waxaan ka jawaabi rabaa su'aal asxaab dhalinyaro ay soo weydiiyeen sidaad ogtihiin America Lottery Diversity Lottery oo sanad walba la qabto markaas magac kale loo yaqaan American Lottery waxa la jiray green card lotterygaas baan rabnaa inaan ka jawaabno su'aalo nagala soo weydiiyey sidaad ogtihiin ama haddii aadan ogeyn lotteryga resultigiisa waxay soo bixi rabtaa hadduu ilaahay kala noqdo 8 bisha May waa bishan markay dhamaato bisheeda kale 8 soo baxaysa insha Allah haddii aad apply gareysay waxaan ku leeyahay hambaliyo waxaad samaysay shaqo wacan inaad ku soo baxdidna Allah jalla wa ala baa garanayo marka waxaan ka jawaabayaa su'aal nagala soo weydiiyey suurtagal ma tahay inaad guursatid xaas kadib markay natiijada soo baxdo tusaale oo kale maantay baa waxaa lagu dhawaaqay resultigii baa maxaa la yiraahdaa website-ka lotteryga American Lottery baa maanta la publish gareeyay markii hore aan apply gareynayna waxaan ku apply gareeyay single ahaan oo kumaana apply gareenin inaan ahay qof married ama ba guursaday su'aasha rabana ka jawaabno marka natiijadii way soo baxday kadib ma guursan karaa waad guursan kartaa laakiin isku day inaad dhageysatid jawaabtan sida ugu macquulsan faahfaahintana si fiican u dhageysatid kadibna waxa ku soo rogalaysa jawaab fiican ah heshiid horta mar laga hor istaagayo inaad guursatid oo DV-ga uu ka hor istaagayo ama lotteryga green card-ka uu ka hor istaagayo ma jirto laakiin waxa jiro waxyaabo laga yaabo inay shaki dhaliyaan oo safaaradda markaa tagtid su'aalaha interview-ga lagu weydiinayo oo shaki meeshaas ka dhasho mar hadduu shaki dhashtana waxaad khatar uga sugan tahay in visa lagu diido haddaba markii aad waxaa jiro markii lagu select gareeyo oo aad guuleysatid oo lagu dhaho you have been randomly selected waxay ku soo dirayaan oo aad buuxinaysaa warqad la dhaho DS260 DS260 gaas haddii markaad heshid intaada macnaha submit gareynin oo macnaha informationka DS260 ga laga raba inaad ku qortid baa waxaa la rabaa guurka aad sheegatay inaad ku dartid DS260 ga markii aad heshid intaadan submit gareynin ama aadan dirin waxay aad ku qortid waayo wixii ay ku weydiinayso safaaradda Mareykanka marka DS260 ga 260 haddii aad ku dartid waan guursaday oo ilaa kuma dar information kaadi guurka halkaas ku dartid hadhow markaad America Embassy aad tagtid waxay ku weydiinayaan wax la dhaho proof ama cadeymo waxyaabaha marka laga rabo inaad cadeysid inaad guursato waxa kamid ah inaad geysid shahaadada guurka certificate marriage certificate inaad geysid laba waxa kale oo laga rabaa inaad geysid sawirro cadeynayo inaad labadiina isku guursateen guurkiina inuu yahay guur sax ah laakiin aadan safaaradda uga raasanaynin inaad ilaahay kuma darnaaday wax aan jiniyo ama sax ahayn ay kugu qaadaan marka waxa advisable ah ama ilaahay kugu darnaaday ee waana fiican ama bay fiican tahay intaadan dirin DS260 ga
inaad informationkaas ka fikirtay laakiin one is oo maxaa la jira warqadaas aad dirtid markii aad tagtid embassiga maxaa la jira ama American embassy aad tagtid waxay ku weydiinayaan kaliya wixii meesha ku qoran arintaas marka waxay kalifaysaa markii adiga visa lagu siiyo ilaa kuma daraadee oo aad Mareykan tagto inay ku qaadato 3 sano oo kale si aad qofkan ugu dacwootid oo aad Mareykan u geysid haddii in case gabadha aad guursanaysid ilmo ay leedahayna ilmaheeda ayada la sugeedo waxay ku dhex jiri doonaan oo lagu darayaa xaaskaada taas dhibaato ma yeelan doonto waxaan jeclahay su'aasha inaan ka jawaabay fadlan subscribe saar like tana no like gare fikirkaada quruxda badan la wadaag asxaabta mar walba ila socoto oo ilaahay kuma daraday barnaamijyada dhigaysatana aad baan uga mahadcelinayaa mahadcelintiinana kama daalayo insha Allah lotariga mar dhow resultigiisa waa la soo deyn doonaa waxaan isku dayi doonaa inaan ka hadalno arrimo badan oo ku saabsan ama aan ka jawaabno su'aalo badan oo la xiriiro arrimaha lotariga